Somaliland oo mar kale qorsheynayso dagaal ay dib ugu qabsato Laascaanood. Madaxweyne Biixi oo amar culus bixiyay xilli uu socday wadahadal maxaabiis isdhaafsi oo dhex mari lahaa maamulada SSC iyo Somaliland. Dowladda Xasan Sheekh oo weli halkeedii ka sii wada dhulboobka iyada oo maanta la barakiciyay dad maata ah. Warbixin xasaasi ah ayaan soo gudbinaynaa daawada muuqaalka like saar oo la wadaag saaxiibadaada. Somaliland mar kale waxay qorsheynaysaa dagaal ka dhana maamulka SSC Khaatumo, gaar ahaan magaalada madaxda gobolka Sool ee Laascaanood. Bilo ka hor ayaa laga saaray guud ahaanba Somaliland gobolka Sool iyo deegaanada SSC Khaatumo. Hase ahaatee, hadda Colonel Biixi waxa uu bixiyay amar culus iyada oo kulan ka dhacay Hargeysa dhexmarayna saraakiil sarsare oo militariga Somaliland ka tirsan iyo madaxweyne Biixi la isla gartay ama hoosta laga xariiqay in Laascaanood dagaal lagula wareego mar kale. Tani waxay muujinaysaa in marnaba wadahadal uusan diyaar u ahayn madaxweyne Biixi. Ka gadaal wadahadal la socday toddobaadyadii la soo dhaafay oo la doonayay maxaabiis isdhaafsi. Hargeysa oo ah caasimadda Somaliland waxaa ku xiran maxaabiis tiro ahaan 50 kor u dhaafaya, kuwa oo laga qabtay dadka reer SSC intii lagu guda jiray dagaalkii ka socday guud ahaanba gobolka. Dhanka kale, Laascaanood oo xarun ah gobolka Sool iyaduna waxaa ku xiran maxaabiis kor u dhaafaya 70 kuwa oo laga qabtay dhanka Somaliland. Wadahadalladan oo ay wadeen odayaal dhaqan ayaa waxaa la doonayay in labada dhinac maxaabiis dhaafsi ay sameeyaan isla markaana isu soo dhawaasho u dhexmaro. Hase ahaatee, SSC hadda waxaa la sheegayaa in xoog lagula wareegi doono Somalilandna ay dagaal diyaar u tahay. Doodadii ugu dambeeyay Hargeysa oo caasimadda Somaliland waxaa laga karkarinayay ama laga dareemayay dhaqdhaqaaq u diyaar garow dagaala taa oo ku wajahan dadka deegaanka SSC Khaatumo. SSC laftirkeedu waxay wajahaysaa culeysyo dhinacyo badan leh oo dhinaca siyaasadda ah. Puntland waxay doonaysaa in SSC ay ka sii mid ahaato maamulka Puntland oo tan iyo markii maamul madax bannaan loo aqoonsaday ama si ku meel gaara dowladda dhexe aqoonsi ugu heshay, Puntland kuma aysan faraxsanayn. Hase ahaatee, hadda waxay u muuqataa in dagaal ay ka wajihi doonto Somaliland, Puntlandna aysan iska dhiibin weli, taa oo caqabad ku noqon doonto dhiiggii dadkii badnaa ay u shubeen deegaankooda. Hadda magaalada waxaa ka jira horumar dhinacyo badan leh, waxaana guud ahaanba xasilay amniga gobolka. Daliilkii qorshaysnaa ee intii Somaliland ay ka talinaysay halkaasi ka dhici jiray waa ay joogsadeen. Nolosha ayaana qaab caadi ah u kala socota. Waxaa jira booliis ka howlgala magaalada oo shacabku ay aaminsan yihiin, isla markaana nabadgelyo ku soo dabaalay magaalada Laascaanood. Si kastaba, hadda taliyaha ciidamada Somaliland ee dhanka ciidamada Nuux Ismaaciil Taani, madaxweyne Biixi iyo mas'uuliyiin kale oo Somaliland ku kulmay ama Hargeysa kulan ku yeeshay waxay isla gorfeeyeen sidii mar kale Somaliland ay ula wareegi lahayd Laascaanood, taa oo markii horeba aan faatixa looga saarin ay xabad uga baxeen. Dhinaca kale, dowladda Xasan Sheekh weli waxay halkeedii ka sii wadaa dhulboobka iyada oo maanta mar kale la barakiciyay dad barimageeda oo aan waxba galabsan. Dhulkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ay lahayd ee ku yaal degmada Boondere ee gobolka Banaadir ayay ku jarmaaday dowladdu. La yaabkusi wuxuu yahay in shacabku aysan wax digniina haysan sida ay ku doodeen. Xubno ka tirsan dowladda ayaa la sheegay in dhulalka danta guud ay u boobayaan ganacsato iyo dad awood ku dhex leh dowladda hadda jirta, taa oo caqabad ku noqday horumarka xamar iyo guud ahaanba dowladda dhexe. Maalinimadii shalay ayay ahayd markii ciidamada dowladdu ay burburiyeen dhul aad u badan oo ka badan 500 oo boos oo ku yaal deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho. Ka horse dowladdu waxay sidaan oo kale weerar jarmaado ah ku qaaday xaafadda loo yaqaan Dabdamiska ee magaalada Muqdisho, taa oo laga barakiciyay dad badan oo shacab ah. Dhulalkan gebigooduba dowladda ayaa leh, waxaase muhiimadu ay tahay qaabka loo adeegsan doono. Shacabku dood kama qabaan sida ay ku doodayaan in dhulalka danta guud ay dowladdu iyadoo qaadato, laakiin dad dhaqaale badan haysta ayaa looga rarayaa iyagu sida ay aaminsan yihiin. Dhulboobkii ugu dambeeyay ee hadda xamar ka dhacay waxa uu ahaa kan wasaaradda arrimaha gudaha ee degmada Boondere iyada oo shacabka lagula soo jarmaaday baalayaal, cagaf iyo gaadiid kale oo burburin ku wada guryahooda. Waxaana maanta qax iyo barakac laga dareemayaa degmooyinka Boondere iyo Shibis ee magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, mar walba uu xukunku yimaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, Soomaaliya waxaa la dhacaa hantida ugu badan gaar ahaanna dhulalka. Sidoo kale waxaa jirta jariimooyin kale oo ay geystaan shakhsiyaad huwan shaarka dowladda.